ka ogtahay ama kala socotaa xidigii gilgilay garoonka Injineer Yariso ciyaartii dhex mareysay Shibis iyo Waaberi ka guulgaaristii ka dhabaynta riyooyinkaaga waxay u baahan tahay qorshe dheer. Cali Cabdulaahi Xasan Cali Dhuux qorshaha iyo wax walba oo ku saabsan xidigan ayaan ku soo qaadan doonaa warbixintan. halka Shibis 3 dhibcood ay leeyihiin. Shibis kubad si wanaagsan oo difaacyada Waaberi ugu soo gooyay laacibka lambarka 7 Cali Cabdulaahi Xasan banaanka ayuu marsiiyay. Ciyaaryahan Cali Dhuux waxa uu ciyaaraa degmada Shibis ee gobolka Banaadir. waxa uu hanqal taagayay degmooyinka kale balse waxa uu go'aansaday matalaadda xulka degmada Shibis ee uu xilligan u ciyaarayo. hadafkiisu waxa uu ahaa guul iyo inuu ka dhabeeyo riyooyinkiisa waxa uuna u soo maray qorshe dheer oo la soo dhiraandhiriyay. qoyskiisa ayaa si aan caadi ahayn u sugayay inuu guuleysto xidigan iyagoo u soo daawasho tagay ciyaarta waxayna u taagnaayeen u sacbinta dhiirigelinta iyo taageerada wiilkooda. xidigan ayaa dadaal u gelinaya sidii uu degmada Shibis gacanta ugu gelin lahaa koobka degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir oo ay qayb ka yihiin degmooyinka oo tartamaya. koobkan ayaana ka socda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. karti iyo dadaal baa lagu kaalin galaa. ciyaaryahan Cali Dhuux qoyskiisa ayaa ku dhiirigelinaya ka dhabaynta hamigiisa waxayna aad ugu farxeen inuu qayb libaax la ka qaatay kulankii ay degmada Shibis la ciyaartay dhigeeda Waaberi guulna ay ka qaadatay. waxay sugayeen 90kii daqiiqo ee ciyaarta hadafkooduna wuxuu ahaa farxadda inay la qaybsadaan wiilkooda. way rumowday taa iyagoo faraxsan oo marxabeynaya ayay ciyaartii soo ilaatay guushiina qaadatay degmada Shibis. hooyo Deeqa Khaliif Maxamed oo ah hooyada dhashay Cali ayaa ka hadashay dareenkeeda ku aadan inay u soo daawasho tagto ciyaartuu ciyaaray wiilkeeda waxayna carabka ku dhufatay inay mar waliba ku garabsiin doonto kubadda cagta isaga iyo wiilasha kale ee qoyska iyadoo Cali la rabto inuu ciyaaray ilaa heer qaran. waa dhawayo wiil dareenkayga lama soo koobi karo aadan ugu faraxsanahay wiilkayga Cali iyo wiilasha saaxiibadiisa goosha ay dhaliyeen guusha ay gaareen aad baan ugu faraxsanahay maasha Allah. maya degmada Shibis aanu imid awgeed iyo taageerada wiilashayda guul waatay dambo waa ku guuleysanay insha Allah ilaahay idinkiis ilaahana guusha iska leh garabkeena Allah taagan ka badan u dhaliyaan rajayna insha Allah hadii ilaahay idmo famil oo wiilkeena taageersanaanahay oo sportska garab taagan garabkiisa insha Allah guul iyo garabnimo dhalinayna insha Allah ilaahay idinkiis wiilkayga hambalyo iyo guul iyo bashbash iyo baraaro hore u sii socdo wanaag iyo khayr ba ka rajaynaya insha Allah iyo meel wanaagsan meesha ugu sareyso ugu fiican insha Allah ilaahay idinkiisa garabkiisana Allah galaya isna waa dadaalaya insha Allah anna waa garab socdaa wixii la dhashay iyo asaga iyo waxa dhan familka dhan taageerada aan nahayba guul baan leenahay Shibis iyo wixii teamka dheelaha dhanba insha Allah. dhanka kale habaryar Farxiyo oo ah Cali habaryartiisa iyo xubnaha kale ee qoyska ayaa ayana ka hadlay dareenkooda ku aadan inay goobjoog u noqdaan ciyaarta wiilkooda. maasha Allah waa ku dhawahay maamo macaanto Cali habaryartiisa ahay hooyadii labaadaan ahay maasha Allah waa ku faraxsanahay horumarka iyo guusha ay maanta galabta gaareen asaga iyo tiimkiisa waxaan leeyahay hore u socda insha Allah waxa idinka rajaynaaba waa qaybaha qaranka insha Allah bidnillah kariim haduu ilaahay yiraahdo maasha Allah waa ku rajaweynaa wiligeena waa filaahay waa ku taamahay alxamdulillah horena waa u arka galabtana waa arka insha Allah maya maasha Allah asaga iyo tiimkiisa iyo anigoo ka socda degmadeeda Shibis insha Allah maasha Allah waxaan ku dhiirigelinayaa inuu hore u wado dardarka sii badiyo insha Allah gaar heer qaran lagu tashto oo Soomaaliya dhan ay ku tashatay insha Allah bidnillah kariim asaga iyo tiimkiisaba guulaha u rajaynaa haduu ilaahay yiraahdo safiican maasha Allah mar walba waa ku taameynaa waa ku farxad gelinayna waa ku dhiirigelinayna inuu horumarkan iyo horumarka sareeyaba inuu gaaro insha Allah. dhammaan qoyska Cali Dhuux ayaa aad ugu riyaaqay bandhigii wacnaa uu sameeyay waxaana saadaashoodu tahay inuu guulo ka gaaro kulamada dambe ee uu ciyaarayo. daqiiqadihii ay ciyaartu socotay ayuu ahaa shumac ka daaran garoonka Injineer Yariso waxa uuna ku soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah
oona dhaliyay goolkii saddexaad ee yeelatay degmada Shibis. Cali oo mar ka hadlayay dareenkiisa ku aadan inuu ka soo muuqdo masraxa Injineer Yariso iyadoo weliba ay goobjoog u yihiin qoyskiisa ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay guusha uu gaaray iyo garab istaagga ay u muujiyeen qoyskiisa. ku dhawaay Rajis Sports maasha Allah iyo horumarka ay sportiga ay hore u sii wado waana ku faraxsanahay maanta inaan ka soo muuqdo Rajis Sports. Yes waa qoyskayga waa qoys family oo sports ah maantana waa ku faraxsanahay inay garabkayga istaagan yihiin mar walba waana ku dhiiranahay maanta waxa goosh ku dhiliyay waa ayaga dareenkooda. Yes maasha Allah kubadda hamigayga hota meeshan kuma eko ilaa iyo meeshii ugu dambayso heer qaran ka rajeynaa insha Allah ina wax balan guulo badan aan ka gaaro horumar sports. maanta galabta waxa ku soo tala galab ina haytriga aad dhalanayo laakiin waxa la qadarta wax walba qaadanay marka qadarta alla waxay ahayd ina maanta hal gool dhaliyo halna caawiyo waana ku faraxsanahay ina meeshas maanta ka soo muuqday waxa la family-gayga dhan waa jeclahay waana ku faraxsanahay maanta garab istaagay maasha Allah intaan in ka badan waa ka rajeynaa. Waxa uu garoonka u soo galay inuu qaato 3 waji ee kubadda cagta midkood waxa uuna dhiirigelin ka helay reerkiisa oo garab taagnaa guul iyo guul daraba. Kulankii ugu dambeeyay Cali Dhuux iyo tiimkiisa waxay guul daro ka qaateen degmada Dherkinley balse waxay ka arguteen degmada Waaberi oo ay ku garaaceen gegida Injineer Yariso iyagoo gabi ahaanba ka reebay tartanka. In qoyskaagu taageero ku muujiyaan waa wax weyn. Xiddigan ayaa nasiib u yeeshay taageeranimo awgii in qoysku garoonka yimaadaan.